ururka suxufiyiinta Somaliland ee Sagja iyo maamulka gobolka Saaxil ayaa maanta si rasmi ah xariga uga jaray barkad biyood oo laga hirgeliyay galbeedka magaalada Berbera taasi oo ay dhismihiisa hirgelisay ururka suxufiyiinta Somaliland ee Sagja waxaana barkad biyoodaasi loogu magac daray Allah u naxariistay xogayihii hore ee ururka suxufiyiinta Somaliland Maxamed Rashiid Maxamed Faarax kaasi oo sanadihii aynu soo dhaafnay uu shir baabuur kula gadoomay duleedka magaalada Berbera waxaana ay ururka suxufiyiinta Somaliland ee Sagja ay barkadani ugu magac dareen Maxamed Rashiid Maxamed Faarax kuwaasi oo u waqfay inuu ajar xasanaad biyaha halkaas lagu ka helo waxaana barkad biyoodani gabi ahaanba laga hirgeliyay meel bilaabiya taasi oo waqtigan ay ku soo beegmayso xilli xagaaya oo aan marnaba biyo laga maarmi karin ugu horeyna waxa halkaas ka hadlay maamulka ururka suxufiyiinta Somaliland ee Sagja horta maanta waxa farxad weyn noo ah barkadii waqafka hay'adda ee aan u dhisnay Allah u naxariistay marxuum Maxamed Rashiid Maxamed Faarax oo halkii uu gaadho kula dhacay uu taaganahay maanta in xariga laga jarayo waliba barasaabkii gobolka iyo xogayihii dawladda hoose iyo waliba marti sharaf kale oo ku jiro Maxamed Ictiraaf nala joogo iyo waliba suxufiyiin badan oo ka kala yimid Hargeysa iyo Burcaba waxa lagu talagalay meesha meel xeeba barkada waxaan ugu talagalnay dadka inta badan dhulkan lugeeya ama dadka xanuunsanaya iyo dadka reemiga meelahan degan carruurtooda horaadantay wadada taagan inay ka cabaan waa barkad waqafa ninka marxuumka ayaan u dhisnay waad aragtaan halka waxaanu xariga maanta u nimay inaan kaga jirro barkad ururka suxufiyiinta Sagja uu ugu talagalay halyeygii weynaa ee saxaafadda Allah u naxariistay Maxamed Rashiid Maxamed Faarax oo waad aragtaan goobtii gaarigu kula dhacay dhagixii waad aragtaan Allah u naxariistay waxa uu ahaa Maxamed Rashiid haliyey weyn oo tiir weyn saxaafadda waxa wuxuu ahaa nin og nin kasta oo suxufi meel joogo Maxamed Rashiid Maxamed Faarax wuxuu ahaa nin aad u basid oo nolol siyaasi buu ahaa oo suxufi ka sareeyay waa inuu run sheeg badan buu ahaa xogayihii hore ee la bedelay imkana waa xogaye cusub iyo barisaabkii gobolka marka waxa weeye ilaahay waxaan uga baryaynaa sadaqada aynu sameeynay walaalkeen Cabdirashiid gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay maamulka gobolka Saaxil oo ugu horeeyo barasaabka gobolka Saaxil Jaamac Yuusuf Axmed kuwaasi oo ku hambalyeeyay ururkani waxyaalaha uu qabtay soo dhaweeyay ballan qaadinayna biyaha ku shubi doonaan aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa bahda suxufiyiinta ee maanta ka taageertay meeshii walaalkood Maxamed Rashiid Maxamed Faarax uu ku rogmaday gaadhiga kula dhacay barkadana waxa la isku qabto waxyaabaha ugu khayrka badan maal dhaweedoon meeshan imid wadada aan marayay waxaan la kulmay waxyaabo aad u tacajiba wataasoo maanta bahda suxufiyiintu way ka jawaabeen annaguna insha Allah inuu ka jawaabi doonaa dadka deegaanka degan ee ku nool haday dad walwaalan yihiin haday oroma yihiin wadada laamigaas ay u istaagaan biyo si ay gawaarida uga daadiyaan gawaaridu marmar bay riski geliyaan maanta tani waxa uu noqonaysaa walaalkood Maxamed Rashiid wax weyn oo ajar ah oo u soo kordhay iyakana ilaahay xasanaada ka siiyo baada suxufiyiinta dhamaanteen ba ilaahay naxariista ilaahay geeyaan leenahay annaguna insha Allah wanu ku dayn doonaa bahda suxufiyiinta ilaa 5 ilaa 10 wixii aanu kari karnay karaankayaga ah ayaan dariiqa raacin doonaa maanta waxa farxad inoo dhamaanteen runtii inaynu taariikhda ku sumadno barkad ama xus loo dhisay walaalkeen Maxamed Rashiid oo ahaa mid ka mid ah halyeeyada iyo hormuudka suxufiyiinta qaranka Jamhuuriyadda Somaliland taariikh weyn kula dalka taasi waxay muujinaysaa sida bulshadeenu gaar ahaan suxufiyiintu ay ugu bisil yihiin horumarka iyo waxqabadka waxaanu mahad gaar ah u soo jeedinaynaa ururka suxufiyiinta Sagja oo iyagu hawsha fuliyay waxa kale oo ka qayb qaadatay oo dhagax dhiga lahayd dawladda hoose magaalada Berbera iyadoo qayb libaxna ka qaadan doonto insha Allah sidee barkadan u noqon lahayd mid taabagalo hoobiya oo hesho waxaanu ku dhiirigelinaynaa dhamaanba bahda saxaafadda inay kor u qaadaan xuska saxafiyiinta waxa la leeyahay Soomaalida waxa tiraa raqba waa ku rageed marka waxa weeyaan qayb kasta oo bulshada ka mid ah cid ku suntan taariikhdeeda ama se wax qabadkeeda in qayb libax ka qaadato aynu ku dhiirigelinaynaa Cabdiraxmaan Maxamed Ciyaar telefishinka caalamiga ee Somali News TV magaalada Berbera.